warbixin United oo ciyaaryahan daayir oo cajiib ah ka doonaysa Juventus. Kooxda Manchester United ayaa diyaar u ah inay miiska saarto lacag dhan 78 milyan oo pound si ay ula soo wareegto xiddiga da'da yar ee Juventus iyo xulka Turkiga Kenan Yildiz oo 20 jir ah, iyadoo Chelsea ay sidoo kalena kordhisay xiisaha ay u qabto weeraryahanka aadka loo qiimeeyo. Sida uu qoray wargeyska Daily Star, United ayaa u aragtay Yildiz xal weerar oo waqti dheer ah, waxayna doonayaan inay ku guuleystaan tartanka saxiixiisa ka hor furitaanka suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo. Yildiz ayaa xilli ciyaareedkii hore si buuxda uga mid noqday kooxda koowaad ee Juventus, isagoo dhaliyay 12 gool isla markaana caawiyay 9 kale. 52 kulan oo uu saftay kooxda dhammaan tartamada oo idil, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah daayirta loogu doonista badan yahay qaaradda Yurub. Labada kooxood ee Premier League ayaa si dhow u daba socday horumarkiisa, balse Manchester United ayaa haatan diyaar u ah inay la kulanto qiimaha ay Juventus doonayso, iyadoo rajaynaysa in awoodeeda dhaqaale ay ku qancin karto kooxda reer Talyaani. Fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal, qodobkaasna wuxuu qayb ka yahay barnaamijkeennii bandhiga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkana la soo gaartay, ilaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena ha sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.